kulankan ayaa ahaa mid toddobaadle ah oo ay yeeshaan isku duwayaasha wasaaradaha Somaliland u jooga gobolka Gabiley. Kulankan ayaa waxa uu ka qabsoomay xarunta gobolka Gabiley, waxaa ka soo qayb galay barasaab ku-xigeenka gobolka Gabiley ahna kusimaha barasaabka gobolka Ali Cabdilaahi Ali Case iyo waliba maayirka degmada Gabiley Shacaib Maxamed Muuse. Kulankan ayaa lagu naaqishay horumarinta gobolka Gabiley iyadoo halkaasi laamaha dawladdu ka soo jeediyeen weerar ku saabsan sida ugu muhiimsan ee loo wada shaqayn karo iyo isku xidhmaan isku duwayaasha gobolka Gabiley iyo maamulka dawladda hoose. taasina waxay iftiiminaysaa in la abuuro jawi sahlaya horumarinta adeegyada bulshada ku dhaqan gobolka Gabiley. Geesta kale kulankan ayaa daarna xal u helidda qaabka ugu habboon ee wax looga qaban karo adeegyada dhaqan dhaqaale ee bulshada ku dhaqan gobolka Gabiley. Waxaana ugu horeyn warfidiyeenada la hadlay barasaab ku-xigeenka gobolka Gabiley ahna kusimaha barasaabka gobolka Ali Cabdilaahi Ali Case, wuxuuna tilmaamay ahmiyadda kulankan u leeyahay laamaha dawladda iyo waliba shacabka ku dhaqan gobolka. خريستو أنا حاولوا بقى تلمذة هي سووا قريبة يقولوا كي استوى يشبه الكود بس أنا ما يركب محله أول بدء إسكاح هذه المشروع عن كذا رأسه وشغل تلميذ سنة مركا الجد هاي هو حيابي بتلميذ تسكيك الصباح هي كل وسارة وحباشة وكله نسوي فرتان كيسكولا مركا هذه التجارب كيسكولا الفريو كرش طالع التجارب كوسنا هذا سان كذا يبطها وسكندر جاي النور السبيع كاسد ما كيسكوي سامو أي حد يجرب تبطين سيارة تبطو مركا وسارة وحباشة وكله بنيانو كلهم كأنهم نقطين مسكارنو بدل الرياض يراهم كلا كم من عندي ولا سوق شيء وبعدين ما يكاف ولا والله إذا حق سبورس يلا الرياض كل بدينا أصوات قبل لا أسكت تكتب بدون هاي راح كمان شفتي تكتب إحنا الحوار وكل سنة ما نتيجة شيء مسلم maayirka degmada Gabiley Shacaib Maxamed Muuse oo isaguna madasha ka hadlaya dhankiisa sheegay inay ka dawladda sahan la shaqeyn doonaan laamaha dawladda u jooga gobolka Gabiley. runtii kulamada noocan oo kale waa aad iyo aad muhiim yihiin oo in maalinta Khamiista ay gobolka loo kulmaa wax fiican oo aad iyo aad qaali ah weey. waxaan filayaa wali umayna kala bixin isduwa degmo iyo isduwa gobol. marka marna gobolka baad maaragtay si gobol ahaan hoostaysa markay district baadana degmada hoostaysa waa labadii isku hoostira marka degmada labadii is waafaqsino oo muxuu ahaa degmadii iyo gobolkii inagoo iyadoon ani wali kala bixinaan wax isku weydiina wax meesha yaalo weey. marka anigu ku faraxsanahay kulankeena wixii degmada soo galana diyaar baan u nahay ka wada shaqeyno idinka laftiina wixii degmada khuseeya dad wuxuu haysaan iyo wasaaraddu wixii ay ugu talagashay degmada iyo wixii hor marka gobolka laga yimaado muxuu ahaa waynu iska wareysani wax kasta oo xaggiina ka yimaado degmada ku xidhan diyaar baan u ahay wixii fududeyn xagga iyaga laakiin sida waa wax muhiim ah oo inoo bilaabmay oo aan awal jiri jirin. si kastaba aatee kulankan ayaa dhacay Khamiis kasta iyadoo laamaha dawladdu ay kaga hadlaan horumarinta adeegyada bulshada iyo waliba in la booqdo dadka beeraleyda iyo xoolo dhaqatada ay ku dhaqan deegaanada gobolka Gabiley ee ka fog magaalooyinka. Waa Jacfar Caawil Hareeri, shabakada wararka ee Gabiley News, magaalada Gabiley.